فوزية أبو بكر حسن oo ah musharaxad u taagan xilka aqalka hoose oo maanta soo gaartay magaalada Cadaado ayaa waxa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada. Fawziya oo warbaahinta kula hadashay qaybta nasiinada ee garoonka diyaaradaha ayaa waxa ay sheegtay inay tahay musharaxad u taagan xilka xubnaha aqalka hoose oo matalaya maamulka Galmudug dowladda federaalka ee Soomaaliya. ujeedada halka safarkaygana waxa uu yahay waxaan ka mid ahay dad ku sharaxan in ay dadka isu sharaxaya aqalka hoose beesha Wacaysle waxaan kaloo raad ugu faraxsanahay in qoontada haweenka beesha Wacaysle in gabar lagu daray oo odayga beesha Wacaysle oo intii dadaal fara badan muujiyay ogolaadayna xuquuqda haweenka isla markaasna uu asteeyay kursigii beesha Wacaysle gabadha ay ku lahayd oo ah beesha Cali Gaaf kaas oo ah kursi kaliya oo ay gabar u soo sharaxday maadaama labada kursi oo kale rag ay soo sharaxeen kana ay gabar u soo sharaxday odayga beesha Wacaysle waxa uu maaragtay go'aansaday inuu asteeyo kursigii qoondada haweenka ay ku lahaayeen beesha Wacaysle aad ayaan ugu faraxsanahay kursigaas inaan u cararo ama aan u ordo sida hadda Soomaaliga u yahay waxaan rabaa in aan fikrad kale oo maaragtay ugu jirto halkan la kaliyo ergooyinka waxaan rabaa inaan u sheego guddiga heer qaran iyo heer gobol iyo cidii kale ee qusayso doorashooyinka Soomaaliya in la ilaaliyo xuquuqda iyo shuruucaha caalamiga ah ee u yaala doorashooyinka waxa loo baahan yahay ergooyinka in aan qolo gooniyo soo wadato oo guri lagu xirto oo ma aragtay sida raba laga yeelo waa qalad dadka qaar musharaxiinta waxa ay soo kaxaysteen ergooyinkii waxay ku xiran yihiin guri saas waa qalad waxay ka soo horjeedaa shuruucda doorashooyinka. Axmed Cabdi Salaan Khaliif Somali Cable TV magaalada Cadaado.